marka la joogo diblomaasiyadda iyo siyaasadda caalamiga ah aamusnaantu mar walba kama dhigna dhexdhexaadnimo marar badan waa mowqif la xisaabiyay waana fariin si taxadar leh loo diray kadib aqoonsigii maamulka gumeystaha Israa'iil ee gobolada waqooyi galbeed Soomaaliya ee Somaliland dunidu si isku mid ah ugama aysan falcelin dalal badan ayaa doortay inay ka gaabsadaan hadal qayaxan halka kuwa kalena ay muujiyeen mowqif taxadar leh oo aan si buuxda loo fahmi karin iyadoo Soomaaliya ay wajahday waqti xasaasi ah oo u baahan difaac diblomaasiyadeed mid sharci iyo mid siyaasadeed oo miisaan leh maadaama uu dalku ku jiro marxalad dib u soo kabasho dib u dhis hay'adeed iyo xoojinta madax bannaanida duruufahaas awgeed qadiyad kasta oo la xiriirta masiirka qaranka waxay u baahan tahay in si caqli leh istaraatiijiyad leh oo xisaabtan ku dhisan loogu wajaho fagaarayaasha caalamiga ah aqoonsigii Israa'iil wuxuu dib u kiciyay doodaha ku saabsan xuduudaha madax bannaanida iyo sida quwadaha waaweyn u saameeyaan dalalka soo kabanaya Soomaaliya oo ku taala meel juqraafi ahaan istaraatiiji ah kana mid ah dalalka saameynta ugu badan ka qaata isbedelada Geeska Afrika ayay muhiim noqotay doorka dalalka saaxiibada la ah ay qaadanayaan dalalkaas dhammaantood si isku mid ah uma aysan dhaqmin qaar ayaa ka aamusay qaar kalena waxay muujiyeen mowqif aan caddayn laakiin hal dal ayaa si muuqata uga duwanaaday inta badan dalkaasina waa Turkiga haddaba muxuu Turkiga u doortay inuu si cad u taageero Soomaaliya xilli dalal badan ay ka gaabsadeen mowqif cad taageeradiisu ma waxay ku salaysan tahay mabda iyo saaxiibtinimo mise wadana istaraatiiji ah oo fog muxuu Turkiga ka qaban karaa fagaarayaasha caalamiga ah si uu u difaaco qadiyadda Soomaaliya ma ku guuleysan karaa inuu saaxiibadiisa quwadda leh ka dhaadhiciyo inaysan raacin wadooyinka siyaasadeed oo qodxaha badan sida tubta Israa'iil sidee ayay saameyntiisa diblomaasiyadeed u bedeli kartaa miisaanka doodda caalamiga ah ee ku saabsan ilaalinta midnimada dhuleed ee Soomaaliya taageerada Turkiga ma horseedi doontaa guul diblomaasiyadeed oo la mid ah tii Soomaaliya ka gaartay kiisaskeedii badda ee Ethiopia iyo Kenya su'aalahaas iyo kuwa kale ayaan ku lafaguraynaa tabinteennan Tifaftir Media ee soo dhawaada Turkigu ma aha dal maanta oo kaliya soo xusuustay Soomaaliya xiriirka labada dal waa mid ku dhisan taariikh dhow iyo mid fog balse miisaan culus leh tan iyo 2011 markii Soomaaliya ay ku jirtay xaalad aad u qallafsan Turkigu wuxuu noqday mid ka mid ah dalalkii ugu horeeyay ee si muuqata u garab istaaga kana dhiga Soomaaliya bahwadaag istaraatiiji ah halkii ay ka ahaan lahayd kaliya dal gargaar loo fidiyo taariikhdaas ayaa muhiim u ah fahamka mowqifka Turkiga ee maanta marka aqoonsiga Israa'iil dhacay Ankara ma aysan qaadan falcelin degdeg ah ama hadal kacsan oo kaliya balse waxay dooratay mowqif ku salaysan mabda sharci iyo diblomaasiyad qoto dheer hadallada rasmiga ah ee ka soo baxay mas'uuliyiinta Turkiga waxay si cad u muujiyeen in Ankara ay ku adkaysanayso xushmeynta madax bannaanida dalalka ilaalinta qawaaniinta caalamiga ah iyo inaan la qaadan go'aano sii horin kara xiisado hore u jiray Soomaaliya sida Turkiga u arko waa dal xaq u leh inuu ka tashado arrimihiisa masiiriga ah isla markaana mudan in codkiisa laga maqlo fagaarayaasha caalamiga ah laakiin mowqifka Ankara kuma eka hadal fagaarayaal yaalla oo kaliya diblomaasiyadda dhabta ah inta badan kama dhacdo kaamilooyinka hortooda waxay ka dhacdaa qolalka xiran kulamada gaargaarka ah iyo wada hadallada ay yeeshaan dawladaha saameynta leh Turkigu wuxuu wada hadal istaraatiiji ah la yeeshay dawlado waaweyn oo door muhiim ah ku leh go'aan gaarista adduunka ujeedada wada hadalladan waxay ahayd in la muujiyo halista ka dhalan karta in la raaco wadooyin siyaasadeed oo muran badan kuwaas oo uu Turkiga u arko qariska tuurnimo iyo qaribaadda qaran jira taas oo keeni karta xasilooni darro hor leh wada hadalladaas Turkigu wuxuu ku adkaystay in dalal sida Soomaaliya oo ku jira marxalad dib u dhis aysan awoodin inay qaadaan culays siyaasadeed oo dheeraad ah waxa uu si cad u muujiyay in wadooyinka degdega ah iyo go'aamada sida qotada dheer aan loo falanqayn ay keeni karaan natiijooyin lid ku ah xasiloonida gobolka habkan uu Turkiga u wajahayo arrinta Soomaaliya wuxuu muujinayaa istaraatiijiyad fog Ankara waxay fahamsan tahay in Geeska Afrika yahay gobol istaraatiiji ah isla markaana Soomaaliya ay tahay dal muhiim u ah xasiloonida guud ee gobolka sidaas darteed difaaca qadiyadda Soomaaliya ma aha mid ku salaysan saaxiibtinimo oo kaliya balse waa mid la jaan qaadaysa danaha istaraatiijiyadeed ee Turkiga laftiisa taas oo aan qudheeda ceeb ahayn marka la barbar dhigo dalal badan oo ka gaabsaday inay banbixiyaan mowqif cad Turkigu wuxuu noqday mid ka duwan farqigaas waxa sal u ah kalsooni hore loo dhisay waayo aragnimo wada jir ah iyo mabda siyaasadeed oo qayaxan taageerada Turkiga waxay Soomaaliya siisay cod dheeraad ah waxayna gelisay kalsooni ay ku sii wado wadada diblomaasiyadeed ee ay dooratay laakiin waa in si cad loo fahmaa in taageero dibadeed oo kaliya aysan ku filnayn iyadoo taas laga duulayo
ayuu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya isugu yeeray hogaamiyayaasha mucaaradka si loo yeesho wada tashiyo sal ballaaran oo qaran loona xoojiyo hay'adaha dawliga ah isla markaana looga faa'iideysto sharciga caalamiga ah iyadoo wada jir la yahay tani waa 10 Soomaaliya ay horay u baratay haddii dib loo eego taariikhda dhow waxa si cad maskaxda ugu soo dhacaya kiiskii badda ee u dhaxeeyay Soomaaliya iyo Kenya iyo kii kale ee muranka badnaa ee Soomaaliya iyo Ethiopia labadaas kiis oo midna ahaa mid diblomaasiyad ku dhisan ka kalena uu ahaa mid sharciyad u baahan Soomaaliya saadaasha badankeed ma aysan siinaynin filasho guuleed cadaadis siyaasadeed olole diblomaasiyadeed iyo hadallo badan oo shaki gelinaya guusha Soomaaliya ayaa jiray si kastaba ha ahaatee Soomaaliya waxay dooratay waddo sharci iyo diblomaasiyad ku dhisan halkii ay ka geli lahayd muran kacsan ama falcelin degdeg ah waxay ku adkaysatay xeerarka caalamiga ah iyadoo yeelatay dulqaad iyo istiraatiijiyad dheer ugu dambeyntii go'aankii caalamiga ahaa wuxuu u hiliyay Soomaaliya wuxuuna xaqiijiyay in xaq sharci mar walba uu ka adkaanayo culaysyada siyaasadda guushaas waxay noqotay astaan muujinaysa in Soomaaliya marka ay midaysnaato oo ay raacdo waddo sharci ah ay awood u leedahay inay ka guulaysato caqabada waaweyn casharkaasi maanta waa mid si buuxda u khuseeya qadiyadda taagan inkasta oo xaaladda maanta ay ka duwan tahay tii hore haddana mabda'a asaasiga ah waa isku mid waa mid u baahan sharci dulqaad iyo saaxiibo fahmaya qadiyadda doorka Turkiga ee maanta wuxuu xoojinayaa rajada ah in Soomaaliya ay mar kale ku socoto waddo guul leh inkasta oo ay jiraan caqabado doodo caalami ah iyo isbeddello degdeg ah haddana jihada guud ee arrimuhu waxay muujinayaan horumar diblomaasiyadda Soomaaliya maanta waa mid ka miisaan culus tii hore xiriirada caalamiguna waa kuwa ka sii ballaaran ugu dambeyn marka la isku daro dadaalka dawladda Soomaaliya mideynta dadka Soomaaliyeed taageerada diblomaasiyadeed ee ay ka helayso saaxiibo Turkigu hormuud u yahay iyo waay aragnimada laga helay guulo hore sida kiisaskii badda waxa muuqata rajo dhab ah qadiyadan maanta taagan ma aha mid sahlan balse taariikhdu waxa ay marar badan muujisay in Soomaaliya marka ay ku socoto waddo sharci iyo diblomaasiyad ku dhisan ay guul gaari karto sida ay Soomaaliya ugu guuleysatay kiisaskeedii badda ee Ethiopia iyo Kenya iyada oo wajahaysay cadaadis iyo shaki badan ayay sidoo kale falanqeeyayaashu rumaysan yihiin qadiyada maanta taagan ay ku dhamaan doonto libin Soomaaliya leedahay dadaalka maanta la bixinayo ma aha mid lumi doono wuxuuna noqon doonaa mid xoojiya madax bannaanida sharafta iyo booska Soomaaliya ee fagaarayaasha adduunka warbixinteennii aan ku falanqeynay taageerada aan liicin ee Turkiga siinaya Soomaaliya guulaha ay filan karto dawladda federaaliga ah iyo rajada shacabka Soomaaliyeed intaas ayaan ku gabagabaynaya waa Abubakar Maxamed oo idin leh waqtigiina ayaad ku mahadsantihiin ha moogaanina inaad ku xirnaataan Tifaftir Media intaanu dib u kulmayno nabad iyo warsan